asxaabay soo dhawaada ku soo dhawaada janaalka Fatax Abuukar maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo baasaboorka Soomaaliga sababta baasaboorka Soomaaliga uusan aqoonsi caalami ah u helin waxa uu weyn dhowr arrimood oo isku dhafan midda koowaad waa amni darro iyo siyaasadda gudaha Soomaaliya muddo dheer waxay ku jirtay khilaafaad siyaasadeed iyo mid amni darro taasoo saameyn weyn ku yeelatay kalsoonida caalamka ee dukumiintiyada safarka dalalka qaar ama dalalka kale waxay ka taxadiraan inay si fudud u aqoonsadaan baasaboor dal amni darro ka jirto maamul xumo iyo diiwaangelin aan buuxdo maamul xumo iyo diiwaangelin aan rasmi ahayn diiwaangelinta muwaadiniinta iyo nidaamka baasaboorka ayaa mararka qaar aan si buuxda u shaqeynin taasoo adkeynaysa in baasaboorka laga helo ama lagu helo aqoonsi caalami ah tirakoob iyo xeerarka caalamiga ah dalalka caalamka waxay u baahan yihiin inay baasaboorka uu la yimaado nidaam sharciyadeed iyo aqoonsi caalami ah international standards oo ISO iyo ICAO u dhigma ama International Civil Aviation Authority Soomaaliya ayaa weli ka shaqeynaysa sidii baasaboorka looga dhigi lahaa mid la jaan qaadi kara shuruucda caalamiga ah laakiin weli ma muuqato dadaalkaas mana miro dhalin afka un ayaa laga sheegaa xiriirka dibadda oo xadidan tirada safaaradaha iyo qunsuliyadaha Soomaaliya ee caalamka ayaa aad u yar taasoo adkeynaysa aqoonsiga iyo isticmaalka baasaboorka si fudud arrimaha dhaqaalaha marka laga fiirsanayo qalabka ama qaababka casriyeynta baasaboorka sida e-passport iyo adeegyada la xiriira waxay u baahan yihiin maalgelin weyn taasoo Soomaaliya ka hor istaagtay in baasaboorka la aqoonsado si buuxda natiijada marka waxay tahay baasaboorka Soomaaliya waa sharci ahaan sax laakiin sababaha amni siyaasadeed iyo maamul iyo dhaqaale ee gudaha dalka ka jira awgood ayaa dalal badan ku qasbaysa inay xadidaan safarka muwaadiniinta Soomaaliyeed oo aysan aqoonsan oo aan dalku gal lagu bixin taasoo keenaysa marka inuu qiimo iyo macnana uu ku yeelo waayo caalamka intiisa kale marka taasaana keenaysa runtii aniga midda kale oon rabo inaan ku daro waxaa waaye siyaasiyiin Soomaaliyeed iyo ganacsato gobolka kasoo jeeda sida dalalka dariska ayaa waxay ka shaqeeyaan markasto sidii baasaboorka Soomaaliga aan loo horumari lahayn sababta ugu weyn waxa waaye waxay ogyihiin haddii dadka Soomaaliyeed ay helaan xorriyad socdaal inay u fududaan doonto inay dalalka caalamka isaga kala gooshaan si fududna baayac mushtari ay ku noqdaan ama ganacsi maadaama ay dad hal abuur leh oo maaragta entrepreneurshipka businesska iyo initiativekiisa hal abuurka aad ugu dheereeya marka caqabad iyo cabsi ka jirta dhankaas ama ganacsiga gobolka la wareegaan oo ay ku faafaan dunida inteeda kale ayaa keenayso in dadka Soomaaliyeed laga hor istaago marka caqabadan waa caqabad ka jirta gudaha dadka hay'adda socdaalka yimaadana markasta ay afka ka dhahaan waxaan horumarinaynaa dukumiintiga Soomaaliya laakiin marnaba aysan u dhaqaaqin horumarinta dhanka dukumiinta Soomaaliya caqabadahaas oo wax laga xalin iyo dadkaas aan laga horwareejin siyaasiyiinta aan rabin in dukumiintiga Soomaaliya la horumarin Soomaaliya weligeed waxay ku jiri doontaa sida hadda ay tahay dukumiintigeedana ma horumari doono sababtoo hadda waxaad caddeyn in kugu filan yarkan Soomaaliga Erasmus scholarship midowga Yurub helay loo diiday dalku galkii sabab la xiriirta inuu wato baasaboor Soomaali ah oo aan la isku halay karin amnigiisa iyo cid qaadanaysa iyo sababta loo qaato taasaana keenaysa runtii baasaboorka sax waaye laakiin nidaamka lagu qaadanayo musuq cidda la siinayo ayaan laga fiirsan mararka qaar waxaa dhacday in la been abuuro ama ma aragta loo isticmaalo muxuu ahay sifa sharci darra oo dad lagu tahriibiyay taasaa caalamka marka waxay u keentay inaan la aqoonsan oo ay aad uga taxadiraan cidda ay siinayaan taasaana keenaysa runtii in uusan helin aqoonsi caalami ah sida aan sheegayba marka shacabka Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay runtii arrintaa ka feejignaadaan oo ay ka taxadiraan oo ay ka shaqeeyaan sidii lagu aqoonsan lahaa dukumiintigooda horumar weyn oo ku sameyn lahaa caalamkana ula jaan qaadi lahaa cid walbana ay awood u yeelan lahayd inay runtii ku safri karto oo meesha rabto ku tagi karto oo waxay rabto danaha rabto kusoo fusho karto hadday noqon lahayd mid ganacsi mid waxbarasho mid caafimaad iyo mid maaragta muxuu ahay deegaanbo ay ku heli karto marka waa in laga wada shaqeeyaa oo runtii
sidii loo horumari lahaa dokumentigaas horumar iyo maaragtay muxuu ahaay guulna looga gaari lahaa, sidii caalamka ay u aqoonsan lahaayeen oo u noqon lahaa standard caalami ah oo la jaanqaada caalamka intiisa kale. Marka taasaan dhihi lahay aniga, waana wax laga shaqeyn karo runtii haddii daacad laga yahay oo dadka Soomaaliyeed ay runtii ay arrintaas ay ka midaysan yihiin. Marka soo weyn hadda channelka cusub tahay subscribe, asxaabtaada la sii wadaag. Mahadsanid.